بسم الله الرحمن الرحيم waxaa markale noo suurta gashay inaan ogaano qaabka loo sameeyo agabka lagu dhiso isla aqalada waxaan soo dhaweynayaa mar labaad adoo ku bilaabay magacaaga waxa sameynayso magaciisa bal nala wadaag magacaygan ku bilaab anigu waxa la yiraahdaa mahad Cumar Geedi wacays baa la yiraahdaa hay waa ka waxa sameynayana waa aws weeyaan oo harar baa la yiraahdaa hay aadi cirka ka hadhaysan oo xagga saraan ka dhignaa waan hargal aqalka xagiisa sare la dhigaa هاي حركيسن والله صهايو بس قرن لا سوي شيء لا فرفره لا صها لو سميه قرن قف حدنابا لا فرفريا هذا لا سوي ولا فرفره waa lagu sameeyay hawskii in baa la dareeshay intii kale hoosta baa laga galinayaa in waxa uu noqonaysaa sidii dugsigii inta kale caar kan xaq hoos la marinay ceerkii iyo la sicnaadna kuma soo tabaysay qurxaan xaqii hoosta wuxuu noqonayaa wax qurux badan hoostii barbar meelan baa laga dhigo guudkan waxa looga baay gaskiyo qujubka dhar iyo waxba la sameeyo waad hoosta inta quruxda badan inta kale cawsku noqonaysa guudkan sidana guudka la marinayaa xaq guudka ka xigaysa oo kala tanduuga lagu dul xidhay intana waxay ka ilaalinaysaa cirkiiba intaana aad quruxnimo hoos kale marka qof kasta muu sameeyaa mise dad gaar ah sameeyaa may qofkii yaqaan garan sameeyo waxa weelka oo yar kuma garanayaan qofkii weyn sameeyo qolku sameeyo ka kale ka daba bartaan macaws gaar ah laga sameeyaa mise caws kasta laga sameyn karaa macaws kasta laga sameyn karaa mid gaar ah laga sameeyaa dadka xooluhu cunayaan ma hina intay caws waligiin xooluhu cunaan iyay kala duwan yihiin baxal xidhiyo darfiyo kala wacwacsan mid fiican oo saga loogu talagalay laga sameeyo aad baad maasan tahay maanta waxaan ku baranaynay hararaha iyo qaabka loo sameeyo dadka aan garanayn baan la wadaagi doonaa aad baad maasan tahay